gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin aniga oo ku hadlaya magaca guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa sharaf ii ah in aan maanta hor imaado golaha shacabka si aan uga warbixinno halka ay noo marayso heerarkii diyaargarowga howlaha doorashooyinka iyo waajibaadkii guddiga saarnaa sidoo hadda gudoomiyaha hortiina ka sheegay sharcigii lagu dhisay lambar 4 ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu qabaa inaan 4 biloodba mar hor nimaadno golahan sharafta leh waxaa jirta inaanan muddo ishor imaanin laakiin mar kasta aan 4 bilood kasta idiin soo gudbinaynay warbixinteenna iyo howlihii aan soo qabanay taasoo keentay kaliya daruufihii jiray iyo howlihii adkaa ee aa ku jirteen inay noo masaabixi weyse inaan ishor nimaadno laakiin aan isla joognay oo aad helayseen warbixinteennii maantana waxaan aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha golaha shacabka oo noo oggolaaday inaan idin hor nimaadno si waajibkeennii aan u gudanno in aan 4 bilood kasta idin hor nimaadno oon ka codsannay oo si sharaf iyo qiimo iyo qadarin ku jirto noogu oggolaaday mudanayaal laga soo bilaabo sanadkii 2000 waxaa ummadda Soomaaliyeed soo mareen geedi socod lagu dhaweynayo sidii lagu gaari lahaa nidaam doorasho oo qof iyo cod ah laga soo bilaabo waqtigaas waxaa dowladihii isxigxigay loo idmaday inay dalka ka saaraan nidaamka ku dhisan 4.5 oo loo gudbo marxalad doorasho qof iyo cod ah waxaa sidoo kale hareer socday golayaal badan oo heshiisyo lagu gaaray oo la doonayay in laga guuro nidaamka doorashada dadban oo loo guuro nidaam ah qof iyo cod waxaana ka mid ahaa kulamadaasayto garoowe 1 garoowe 2 oo 2012 dhaceen heshiiskii hogaamiyaasha madasha qaran oo 2016 dhacay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland oo 2016 dhacay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo 2018 dhacay waxaa sidoo kale muhiim ah in aan isxasuusino in danayaasha caalamiga ah si gaar ah u daneynayaan doorashada Soomaaliya 2021 inay nabad ku dhacdo nidaam ku dhacdo is-ogol ku dhacdo kulankii golaha ammaanka ee bishii November 2019 waxaa taageero farsamo dhaqaale iyo mid siyaasadeed loogu muujiyay doorashada Soomaaliya waxaa kaloo jirta in daneeyaasha qaar ay horeba dhaqaale ugu yabooheen doorashada 2021 iyadoo ay jiraan kuwa kale oo taageero diyaarna la ah mar allaala markii uu sharcigan miiska saaran uu soo baxo mudana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan golaha uga mahadcelinayaa sida ay noogu fududeeyeen gudashada waajibkeena laga soo bilaabo maalintii la aasaasay guddigan waxaan kaloo mahad gaar u celinaynaa guddigii ku meel gaarka ahaa ee soo diyaariyay hinda sharciyeedka hor yaalla baarlamaanka sida ay nooga tixgeliyeen talooyinkii aan soo jeedinay oo aan u soo gudbinay hase yeeshee waxaa golaha ka codsanaynaa in mar kale ay tixgeliyaan soo jeedinta la xiriira qodobo ku jira hindiya sharciyeedkan oon la jaan qaadi karin howlahayna mudana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaa la dhisay 2000 waxaa la dhaariyay 27 Julaay 2015 iyadoo la raacayo qodobka 1 ee dastuurka kulmeegaarka iyo sharciga guddiga oo loo yaqaan law number 4 muddaxileedka oo ah 6 sano oo aan cusboonaysiin lahayn waxay ku eg tahay 26 Juulaay
2021 muddadii uu dhisnaa guddiga wuxuu u diyaariyey qorshe istaraatiijiyeed 5 sano ah oo ku salaysneed 2017 ilaa 2021 oo qeexaya howlaha laga maarmaanka u ah doorashada 2021 qorshahaas 5 sano waxa uu ka kooban yahay 7 ujeedo oo mid kasta ay ku ratiban tahay ka ratibnayaan howlo fulintoodu leeyihiin waqtiyo mudaysan oo cadcad mudana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh fulinta howlaha istaraatiijiyada guddiga waxaa saldhig u ah mabaadi'da dastuurkeena ku meel gaarka ah sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sharciga asxaabta waa saddexdaas sharci waxa saldhigga noo ah oo aan ku shaqeyno 4 sano aan shaqada ku soo wadnay oon waxba khilaafaynin hadduu wax khilaafayna naloo sheegi doono nalagana sixi doono haddii ilaahay idmo waxaa kaloo jiray heshiiskii madaxa qaranka ee baydhabo 2018 waxaa kaloo jira qorshaha horumarinta qaranka oo asna aan aad ugu shaqeyno natiijada ka soo baxday la tashiga dadweynaha Soomaaliyeed dibadda iyo gudaha oo aan soo qabanay waayo aragnimo iyo aqoonta guddigu ka dhaxlay doorashooyinkii dalalka kale iyo culunta casriga ah ee maanta jirta ee doorashooyinka ka hadasha mudana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga waxaa u hirgalay qorshihii uu ka degsaday 7 yool arrimaha soo socda yoolka koowaad diyaarinta xeerarka hagaya howlaha doorashada guddigu wuxuu diyaariyay xeerar habraacyo iyo siyaasado dhowr ah oo dhammaystirkooda la waafajin doono sharciga doorashada ee hor yaalla golaha shacabka waxaana ka mid ah xeer nidaamyaha diiwaangelinta codbixiyaha xeer nidaamyaha maamulka doorashooyinka xeer nidaamyaha wacyigelinta codbixiyaasha xeer nidaamyaha xalinta khilaafaadka doorashooyinka xeerka habka dhaqanka saxaafadda xilliga doorashada xeerka habka dhaqanka xisbiyada siyaasadda xilliga diiwaangelinta doorashada xeerka habka dhaqanka kormeerayaasha doorashooyinka iyo xeerar kale oo la xiriira arrimaha doorashada arrimahan oo dhan waxa waa arrimahan si xoog leh uga soo shaqeynay muddo gelinay waqti iyo aan gelinay culeysba laakiin waxay ku xiran tahay ansixintooda inuu soo baxo sharci doorasho oo la waafajiyo ay iswaafaqsanaan ay israacaan yoolka labaad dhismaha hay'adda guddiga doorashada guddiga markii la magacaabay kadib waxa uu ku guuleystay inuu dhiso hay'ad doorasho oo karti iyo awood u leh hirgelinta dhammaan howlaha doorashada waxa uu dhisay qaab dhismeedkii guddiga iyadoo guddigu maanta leeyahay howlwadeenno gaaraya 160 kuwaasoo si toos ah uga howlgala xarunta dhexe iyo xafiisyada guddiga ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir guddigu wuxuu xubin rasmi ah ka yahay hay'adaha doorashada ee caalamiga sida AWEB waxa waaye hay'adaha doorashada caalamiga xorintooda ay tahay Kuuriya Arab MPs ururada doorashooyinka ee Carabta ayadana aan ka midnahay oo Jordan uu yahay saldhigooda iyo ururka African Union oo asna saldhigiisu uu yahay Addis Ababa yoolka saddexaad wacyigelinta codbixiyaasha guddigu wuxuu dhammaystiray manhajka wacyigelinta codbixiyaha qorshaha siyaasadda iyo nidaamka gudbinta fariinta wacyigelinta codbixiyaha iyo xisbiyada astaynta daneeyayaasha ka qaybgeli kara gudbinta fariimaha wacyigelinta yoolka afraad asna wuxuu quseeyaa diiwaangelinta codbixiyaasha xaqa u leh codaynta waxaa la hirgeliyey wadatashi lala yeeshay dhammaan dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo Soomaalida ku nool dalka iyo dibaddiisaba waxaa daraasayn lagu sameeyay daraasayn iyo qiimeyn noocyada kala duwan ee diiwaangelinta codbixiyaha daraasadaas oo muddo socotay oo aan kala fiirinaynay kee ugu habboon Soomaaliya in diiwaangelin laga sameeyo qodobka kale waxa waay sahminta goobaha diiwaangelinta waxaan soo sahminay meel allaale meeshii dadka laga diiwaangelin karo barina ay cod ku bixin karaan ayadoo markii hore sidaan ayaantii hore idinkugu warbixin aan si satalaad u sameynay haddana si qof ah aan u tagnay oo ayadana inta badan diyaarsan dejinta miisaaniyadda
howlgalka diiwaangelinta codbixiyaha iyadana waa dejinay waxay ku baxaysaa 23 milyan 7 milyan waxaa ballan qaaday dowladda inta kalena waxaa ballan qaaday hay'adaha caalamiga inay bixinayaan 7 milyan ay dowladda bixinayso waxaa la siinayaa kumanaan shaqaale ku meel gaar ah oo la qaadanayo oo ka shaqayn doona diiwaangelinta haddii ilaahay idmo dejinta qorshaha howlgalka diiwaangelinta codbixiya kaasna waa noo degsan yahay waa diyaar waa yaalaa yoolka shanaad diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda iyo dejinta xeerarkooda waxaa guddigu ku guulaystay aasaasidda xafiiska diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda guddigu wuxuu ku guulaystay in uu guddoonsiiyo shahaado diiwaangelinta ku meel gaarka ah 26 xisbi 63 xisbi haddana waxaa safka ku soo jiro 20 xisbi oo pipeline-ka ku soo jiro waxaa guddigu diyaariyay qorshe diiwaangelin rasmi ah waxaa guddigu diyaariyay xeerarkii iyo habraacyadii maareynta xisbiyada siyaasadda yoolka lixaad diyaar garowga qabashada doorashada dejinta miisaaniyadda howlgalka doorashada gaarsiinta adeegyada doorashada xarumaha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir qabashada doorashada boos buuxinta ee golaha shacabka ka qaybgalka abaabulka dhismaha guddiga gaarka ah ee isku dhafka ah ee qaabilsan sugidda amniga doorashada oo loo yaqaano afka qalaad election security task force oo yeeshay fadhigiisii ugu horeeyay bisha November gudaheeda sahminta goobaha ay suurtagal ka tahay inay noqdaan goob codbixin dejinta jadwalka howlaha doorashooyinka dejinta hanaanka xallinta khilaafaadka doorashooyinka mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh miro dhalka waxqabadka howlaha guddiga ee aan idinkaga warbixiyay waxay ku xiran yihiin dhammaystirka ansixinta sharciga doorashooyinka haddaba waxaan codsanaynaa in golaha shacabka tixgelin gaar ah siiyaan arrimaha soo socoto marka go'aan laga gaarayo nooc doorasho iyo nooc diiwaangelin ee la ansixinayo maadaama guddigu uu yahay guddiga ku shaqayn doona wax allaale wixii la soo saaro guddigu doorashadu waa guddi madiidin u ah shuruucda aad soo saartiin inay ku shaqeeyaan shaqadeennu waa intaas laakiin markaan ku shaqaynayno waa inaan heli karno wax aan ku shaqayn karno waa inaanaan helin wax xujo ah iyo sambuus afargeys ah xulashada nooca doorashada in nooca doorashada la waafajiyo mabaadi'da dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka wixii kaas in hirgelintiisu ilaaliyo xuquuqda muwaadinka ka qaybgalaya doorashada ha noqdo tartame ama ha noqdo codbixiye in xuquuqdooda la ilaaliyo sharcigaas waa inuu xuquuqdooda ilaalin karo qodobka saddexaad in aan guddiga madaxa bannaan la saarin mas'uuliyad fulinteedu adag tahay sida soo saaridda habraacyada astaynta deegaanada doorashada iyo dhowrista qoondada dumarka 4 in nooca doorashada uuna u horseedin khilaaf iyo dagaal ilaaliyana midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed 5 in uu ilaaliyo xuquuqda dhalinyarada dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahayn qodobka kale waxa waa in guddiga madaxa bannaan doorashada la siiyo fursad uu ku xulan karo nooca diiwaangelinta codbixiyaha haddii uu arko inuu la jaan qaadi karo daruufaha ku xeeran ama saameynta ku yeelan kara howlaha doorashada tusaale haddaan idinka siiyo sharciga waxaa ku dhigan waxay noqonaysaa diiwaangelinta biometric waa 100 nooc inoogu habboon inuu guddiga xulan karo marka in loo fududeeyo sharcigii hore waa ku jirta waa laga reebay qodobkaas ma fahamsanin sida ay noqon karto markaasayto mudana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh ugu dambeyntii maanta waxaa idin hor yaalla hindi sharciyeed doorasho oo ka turjumaya masiirka ummadda Soomaaliyeed waxayna ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysaa maalmarinta sharci la jaan qaadi kara duruufaha dalka ka jira howlihii uu guddigu soo qabtay duruufaha dhaqan dhaqaale laguna dhisi karo dowlad dimuqraadiya oo ku timaada doorasho qof iyo cod ah waxaan idin rajaynayaa guul
shacabka golaha shacabka guul iyo baraaro aan is aamino aan is dooranno haddana aan is aamino waa mahad